Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkii sporti hala kala socotaan maalin kasta bartina ciyaaraha laatestuuba iyo waliba muuqaal cusub hawala maalin kasta ayaan idin soo gudbinaa wararka ugu dambeeya sportiga fadlan subscribe garey waxaan eegaynaa ciyaaryahan Kylian Mbappe oo ku dhacay cudurka halista ee COVID-19 ciyaaryahan Thomas Partey oo wili ay doonayso kooxda kubadda cagta ee The Gunners macquul meen ciyaaryahankan uu imaado Fly Emirates Gary Bell oo laga ganacaatinaya garoonka Old Trafford ay ku camalarto kooxda kubadda cagta ee Manchester United Kante oo doonaya inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Inter Milan ee ka dhisan dalka Talyaaniga isagoo la midoon doono macalinkiisii hore kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo soo bandhigtay maaliyadeedii saddexaad taageerayaasha United maxay ka dhaheen iyo waliba fadeecadii Greenwood iyo Foden ayaa waxaa ka hadashay gabadha modelista ahayd ee u dhashay dalka Iceland fadlan subscribe gareysoo ku fog gambaleelka soo hesho video ka soo dhigno haddii aan eegno laacibka xulka qaranka France Kylian Mbappe ayaa waxaa ku dhacay cudurka halista ee coronavirus kaasaad mooday in kulanka Caawa ay kooxdiisu la balasatay kooxda kubadda cagta Croatia uu ka maqnaan doono xidigaanu ciyaaro kooxda kubadda cagta PSG kana mid xidigihii gaarsay kooxdaasi ilaa iyo finalka Champions League ayaa kulanka Caawa seegi doono waxaana laga helay cudurka COVID-19 balse ilaa iminka ayaa wuxuu ku jira karantiil wuxuuna sii joogi doonaa caasimadda dalkaasi ee Paris soo kale waxaa la filayaa in ciyaaryahankani uusan aadin tababarka kooxda si uu u dhameysto ilaa iyo uu maro tijaabo kale oo caafimaad laacibka kooxda kubadda cagta Athletic Madrid ee lagu magacaabo Thomas oo u dhashay dalka Ghana ayaa la filayaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta The Gunners ciyaaryahankan ayaa waxaa si aan caadi ahayn u doonaya tababaraha kooxdaasi Michael Arteta balse wuxuu codsaday in laacibka hore kooxda kubadda cagta Arsenal Kano oo dhashay dalka Nigeria uu ka saacido in uu ciyaaryahankan ku qanaco si uu ugu biiri lahaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal balse kooxda kubadda cagta Athletic oo la ciyaaryahankan ayaa moodayso inay ciyaaryahankan ay ku doonayaan 45 milyan Arsenal ayaa waxay diyaar u yihiin in ciyaaryahankan ay ku gataan 35 milyan taas ayaa waxay noqon doontaa maqasho weyn aysan kooxda kubadda cagta Arsenal si fudud ku heli doonin adeega ciyaaryahankan da'da yar ka ciyaara qadka dhace ciyaaryahan Thomas ayaa si wanaagsan u soo dhex muuqday La Liga Isbaanishka sanadkii la soo dhaafay soo gaarsay kooxdiisa ilaa iyo heer aad u wanaagsan isla Isbaanishka ayaan ku jirnaa kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa u soo bandhigtay qorshe kale ay ku iibin lahayd ciyaaryahan Gary Bell oo amaha ay ku siiso kooxda kubadda cagta The Reds ciyaaryahankan Gary Bell ayaa boos joogta ka haysan kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxaana sidoo kale uusan qorshe ugu jirin tababaraha kooxdaasi Zinedine Zidane ciyaaryahankan ayaa door bidi lahaa inuu ku biiro xagga Premier League soo kale kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa doonay ciyaaryahankan balse kooxda kubadda cagta Spurs aysan helin ama aysan haynin qarashka u baahantay kooxda kubadda cagta Real Madrid soo gudbinta barnaamijka waxaa ka qayb qaatay Khadija Buko Travel Agency Khadija Buko Travel Agency waa hay'ad socdaal ee dalka inta badan ka howlgasha caasimadda dalka iyo waliba countiga Mandera Khadija Buko Travel Agency imika waxay sameysay qiimo dhimis aad u wanaagsan kaasoo 50% adigoo ku adaya caasimadda dalka ee Nairobi 7,000 oo kaliya haddii aad joogtid degmada Calwaaqa Khadija Buko Travel Agency waxaa kugu diyaara xafiiskeeda degmada Calwaaq dhalinyaro aqoon durugsan u leh si walba aad uga baahan tahay tigidhka ayaa ah mid markastoo diyaara maalin kastoo Isniina iminka maxaad sugaysaa la safar Khadija Buko Travel Agency socdaal aad u wanaagsan oo raaxa leh adigoo aan dareemin wax walwala ayaad ku degaysaa garoonka weyn ee Wilson Airport haddaba ballanteenu waa Khadija Buko Travel Agency ku safar raaxa leh Khadija Buko Travel Agency
dhan kale haddii aan eegno daawadayaal ciyaaryahan Kante oo ciyaara kooxda kubadda cagta Chelsea qadka dhexe ayaad moodaa inuu jeclaan lahaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Inter Milan ka dhisan dalka Talyaaniga kana ciyaarta horyaalka Serie A. tababarihii hore kooxda kubadda cagta Chelsea Conte iminka maamulo kooxda kubadda cagta Inter ayaad moodaa inuu inta badan ciyaartoy ka baadigoobayo horyaalka Premier League isagoo hore u qaatay dhowr ciyaaryahan ay ka mid yihiin ciyaaryahan Lukaku, Sanchez, Smalling, Young, Eriksen. iminkase wuxuu usoo jeestay kooxdiisa hore Chelsea si uu qaato ciyaaryahankani balse kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa ciyaaryahankan u qiimeynayso ilaa 60 milyan. kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxay soo bandhigeen maaliyad cusub taasad mooda inay ka duwan yihiin maaliyadii hore kooxda kubadda cagta United waana cadaan madow inta badan waxaa la yiraahdaa tani waa zebra runtii taageerayaal badan ee kooxda kubadda cagta United ayaa ka hadlay arrintan qaar waxay dhaheen kooxda United waxay noqdeen sida Newcastle oo kale koox weyn oo funaad noocan wadato walla inaan gadanin funaadan qaar ayaa wuxuu yiri United goormay isku bedeshay kooxda kubadda cagta Crystal Palace qaar kalena wuxuu yiri aniga hadda ii fiican tahay sababtoo maaliyadan lacag raqiis ayaan ku heli karaa kuwaas sababtoo maaliyadii hore United waa mid qaala laga balse tan haddii ay noqoto waa sida Crystal oo kale waa sida Newcastle iyo waliba kooxi kale yara marka qiimo yar ayaan ku heli karaa way dhacday qaarna wuxuu yiri runtii tan waxay sharaf iyo sumcadda kooxda United dhulka la galaysa maaliyadan waxaana maaliyadan ciiseynaya laacib kore kooxda kubadda cagta ee Manchester United David Beckham soo kale haddii aan ugu dambeyntii laacibka kooxda kubadda cagta ee Manchester United Greenwood iyo daayirka kooxda kubadda cagta ee Manchester City Foden ayaa waxa ku dhacday fadaacad weyn taasoo ahayd in ay jibiyeen sharciga u yaalo guddiga FIFA siba xilligan lagu jiray halista ee cudurka COVID-19 ayaa waxa hotelkooda ay kula kulmeen laba gabdhood oo u dhashay dalkaasi oo modelista waxaana ay ku qasabtay in tababaraha kooxdaasi uu ka reebo labadan ciyaaryahan kooxaha matalila kooxda kubadda cagta Ingiriiska kulanka ay la balansayn kooxda kubadda cagta Denmark waxaa soo kale arrintaasi ka hadlay gabadhaneeto modelista lagu magacaabo Nandi Grandostiri iyo wila gabadha kale lagu magacaabo Lara Clausin siba gabadhan la yiraahdo Nandi Grandostiri ayaa waxay tiri runtii ciyaaryahan Greenwood waxaan isku baranay qaybta online-ka markuu imaanaya dalka Iceland waan la socday aadayaan ugu faraxsanahay inaan la kulmo waxaan ahayd waqti aan caadi waqti fiican oo xasuus mudan runtii sharaf weyn ayaa ii tahay inaan la kulmo ciyaaryahan Greenwood soo kale gabadhi kale la yiraahdo Lara iyadana soo kale waxay tiri aadayaan ugu faraxsanahay la kulmo ciyaaryahan Foden runtii waxa ahayd habeen aad u wanaagsan waan wala hadalnay waan sheekaysanay runtii waan isla casheynay waqti fiican ay wana qaadanay balse waxaan ka xumahay arrintii ku dhacday oo ahayd in laga reebo kooxdooda culkooda soo kale in dib loo celiyay dalka Ingiriiska taasna ahayd wax aan inta badan aan ka shaleynay si walba ay noqoto waxaan u rajeynayaa labada ciyaaryahan inay noqdaan kuwa inta badan ka rajo dhigin horeyn u soo socdaan soo kaleetana waxaan aan u sheegi lahaa oo tiri in aysan niyad jabin wax kasta oo waa macquul waana dhacan balse waa laga soo kabsadaa sida ay u sheegtay wargeeska leeda dabil soo kaleetay ciyaaryahan Greenwood iyo Foden ayaa labadoodaba arrintaasi raali gelin weyn ka bixiyeen sportii